السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال عشان wanaagsan waxaan bilaabaynaa marka coursekeena javascriptiga waxa ugu horeeya aan baranayna waxa waaye in horta pageka aan kusoo darno javascriptiga. Javascriptiga for now keligeeda ma isticmaali doono, waxaan la isticmaalaynaa web page html ayaan la isticmaali doonaa. waxaan sameynaa marka ugu horeysa file html aan abuuranaa, waxaan leeyahay index.html. next waxaan sameynayaa filekeena javascript, waxaan bixin doonaa main.js. now marka html ku laabo shifty number 1 polyplate-ka html ayuu ku generate gareynaya. document-ka waxaa ku bedeshaa js, naga badan tahay intaas. markaa kusoo daraysid marka javascriptiga laba way waa isticmaali kartaa. way koowaad waxa uu yahay in aad ku dhex qorto scriptigaaga halkan aad ku dhex qorto, ama inaad file banaanka yaala aad soo import garayso ama soo select garayso sida css ka aan shalayto ama videodii hore aan ku sameynaynay. waxa ugu horreyn sameynaa waxa waaye in gudaha fileka dhexdiisa aan ku qoro. waxaan furi doonaa script tag, kadib xer script. okay dhexdaana marka ku dhex qoraysaa wax walbo scriptiga qusay. waxa ugu horeeya sameynaa waxa waaye console ayaan daawacayaa. console.log consoleka waxa waaye waxaa lagu soo bandhigayaa fileka qaybta hoose. chrome devtools ku arki doonaa. waxaan dhihi doonaa hello guys. okay save leh, open with live server. live server shalay waa kasoo hadalnay. devtoolska marka waxaa kaleysaa f2 alif ayaa leedahay computerkaaga. marka qaar waxaa laga yaabaa in f2 alif ay isku shaqeyn weyso. waxaa la qabanaysaa marka fn ama function f2 alif aa leedahay computerkaaga. in waxaa laga yaabaa f2 alif uu yahay airplane mode inuu yahay laga yaabaa. I'm sorry. now marka hoos fiiri hal mar aan si guud u fiirino chrome devtoolska. kan ugu horeeya elementiska waxa waaye html ka elementskiisa waa si ujeedid scriptigii pagekeena oo dhan meeshaan lagu hayaa. console-kan waa meesha ugu badan oo aan isticmaali doono, waa console.log markaa aad meesha wax kusoo daawacmayeen. sourcigan waxa waaye filasha aad isticmaalaysid, tusaalahaan scriptiyada html files waxyaalahaas oo dhan halkan ayay soo geli doonaan. waxaa kaloo jiri doona networkan later on ayaan arki doonaa markii aan synchronize javascript aan gaarno. performance iyo memory intaan hadda uma baahni for now. waxaan u baahanaa applicationkan asagana waa arki doonaa. waxaan ku xareysan doonaa insha allah markii aan local storage-ka ayaa marka aan gaarnay aan arki doonaa. now marka consolekan fiiri maxaa lagu soo daawacay hello guys. saa ujeedid hello guys, that means scriptigeena waa u shaqeynayaa waaye. wax walbo script la xiriira meeshaan ku qori karnaa. waxaa jiro console.table, console.error, something like that. console.error oo kala jiro waa arki doonaa waxaas oo dhan. now marka hal mar saa ujeedid error maxaa lagu soo bandhigay hello guys oo guduudan. that means hadhowdii markii aan scriptiga wax ka qaladno errorkan noo soo bixi doono oo javascript ay noo soo generate gareyn doontaa. adigana marka waa isticmaali kartaa hadhowdii markay arabto in aad userka usoo bandhigto waxyaala la xiriira errorska iyo waxyaalahaas. sidoo kale waxaa jira console.table. asigana qaab table ayuu wax usoo bandhigaya. marka tablekii wixii aad dhexgeli kartaa for now, wax aan u baahannahay maahan. waxaan inta badan isticmaali doonaa console.logan ayaan aad u isticmaali doonaa. waygan waa wayga koowaad. wayga labaad waxa uu yahay inaan sameyno script tag, inaan furno aan ahno sourcigiisa aan sheegno. scriptiga sourcigiisa marka wuxuu noqonayaa filekan main.js kan ayuu noqonayaa. waxaan leenahay marka ./ that means pageka hadda aad joogo waay, bis macnaha folderka hadda aad joogo. ./ wuxuu dhigantaa folderka hadda aad joogo. haddii aad u baahato folder banaanka ah later on waa arki doonaa. waxaan dooranaynaa marka main.js ayaan dooranaynaa. control s ayaan leenahay. kan for now waa iska tiraynaa. filekan dhexdiisa tagaynaa marka asiga waxaan kusoo qoraynaa console.log hey man inuu shaqeynayo in kale aan tijaabino. now saa ujeedid
hey man way u shaqeynaysaa. The reason why html filekan uu ku xiran yahay haddaa comment saarad filekan aan dib ugu laabto baashi mala sababta waxay tahay filekii connectionka waa kala jiray dib aan soo celiyo save mar kale refresh hello man I'm hey man. So waxaa marka labadaas way ayaan scriptii ugu soo xiraynaa filekeena html-ka. Later on waxyaalahan isticmaali doono dhan dhammaantoodii waa faylashaas ayay noqon doonaan insha allah. marka arrinkaas intaas ayaan gudbaynaa. waxaan sii gudbaynaa variableska iyo waxyaalahaas ayaan sii gudbaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.